waxaan hambalyeynayaa oo bogaadinayaa wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradaha kale ee kala soo shaqeeyay xafladan iyo ganacsatada lafdhabarta oo ah shaqadan halkan laga soo jeediyey iyaguna soo jeediyey waxyaabaha ay qabanayaan run ahaantii hawshaasi waxay tusaale u tahay horumarka muddada yar aan gaadhnay shacabka waqooyi bari horaanu sheegnay waa dhashay waana joogaya horuuna u soconaya dibna looma celin karo run ahaantii waa farxad aad iyo aad u weyn dhaqaaluhu wuu koraya inkastoo abaaru ay nagu dhaceen wuu koraya ganacsigu waa sektorka ugu qiimaha badan hawlaheena ama dhaqaalaheena kow dakhli baa dadka shakhsiga ka shaqeynaya dakhli bay ka helaan laba waa laga shaqeeyaa oo dhalinyaro iyo waayeelba waa laga shaqeynaya shaqaa laga helaa saddex cashuur baa dowladdu ka qaadaa oo dakhligii ay dowladda ku maamuli lahayd ayaa laga keenaya marka waa runtii waa sektorka aad iyo aad u muhiim ah waxa ku jira markaan leenahay ganacsi waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waxyaabaha la dhoofiyo iyo waxa la soo dhoofiyo iyagoo loo kala saaray wasiirku markii aad maqlayseen kuwa jumlada iyo kuwa tafaariiqda waxaan ka hadlaynaa xoolahan ka hadlaynaa dadku ma fahansana inta badan maadaama aynu si reer guuraannimo u dhaqno xoolaha waxaa iga horreeyey wasiirkii hore ka hadlay wasiirka caafimaad ayaa qodobka sheegay waa xoolaha waa beeraha iyaguna laakiin wuxuu u baahan yahay ganacsigeenu gaar ahaan xoolaha iyo beeraha waxay u baahan yihiin in kor loo qaado tayadooda in kor loo qaado wax soo saarkooda marka la eego hawsha gashayna in kor loo qaado tusaale ahaan xoolahan soo qaadanaya xoolaheenni waxaynu u dhaqnaa reer guuraannimo geelan barqamaalkaabaa hadda ku soo kordhay saaxadda oo runtii casharo badan buu xambaarsan yahay xoolihii abaarta waa timid way jabayaan markay jabaan dadkeena oo jabaya dadku magaalooyinka imanaya iyagoo caydha oo IDP baa leedahay dadkaasi dib ugu noqon maayaan reer baadiyanimo halkaasay ugu dhammaatay waxay noqonayaan dadka la yidhaahdo darajada hoose faqiirka ah ee magaalada degan bay noqonayaan